marka hore munaasabadan aan isku taaga waxa weeye inaan ka warbixiyo saddex qodob oo heer caalami ah oo madaarka Soomaaliland maanta gaadhay oo nalagaga tixgeliyo socdaalka Soomaaliland qofka musaafirka ama baasajarka ee ka duula madaarka international airport waxa looga tixgeliyaa sida garoonada caalamiga ah oo heerkiisu maalin uu soo sare kacayay siba xagga amniga oo aniga khuseeya inaan ka warbixiyo iyo documentiska lagaga dhoofo oo kuwii sax ahaa oo ay naga caawiyeen qalabka saxda ah ee naloo keenay ee lagu eego inuu documentiska lagu dhoofayaa uu yahay kii saxda ahaa resultka nala siiyay iyo tababaradii caalamiga ah ee aan la jaan qaadnay waxaan ku dhaxalay inaan 380 baasaboor oo been abuura amba isku eekaysiisa inuu taliyaha laanta socdaalka alla taliyaha madaarka Cabdi Salaam gaashaan la Cabdi Salaam gacanta ku dhigay kuwa soo iskugu jiray dawlado kala gedisan ilaa waxaan ka harag baasaboorka Sacuudiga oo forjiriyaan balastmaan arag laakiin dhammaan hay'adaha dawladaha caalamka way ku wada jireen dhamaantoodna waxa tixgelin iyo mudnaan nagu siiyay dalalka aynu jaarka nahay iyo dalalka reer Yurub labaduba waxa kale oo ka warbixinayaa intii uu joogay wasiirkii hore halkan arrimihii amba jaranjartii uu qaaday socdaalka sidoo uu caawiyay sidaanu isku kaashaha iyo wada shaqeynta aanu lahayn wasiirka duulista hawada iyo laanta socdaalka Soomaaliland taas waxay dhaxalsiisay in madaarka loo aqoonsado heerarka koowaad labaad oo aynu ka sareyno dalal aynu jaarnayaan doonay halkan inaan ka carabaabo waxa guushaas waxay ku timi dadaalkii dheeraadka ahaa ee shakhsiga madaarka ka dhoofiyo hubitaankiisa alaabtiisa iyo waxa halkan ka baxay ayaa lagu qiimeeyay madaarada iyo waxa soo degay sida u qaabilaan xogta immigration Soomaaliland ilaa 2007 ilaa maanta qofka soo dalka soo galay waxaanu ka haynaa astaamaha gaarka ee ruuxa lagu safeeyo aan wax kale ka sheegaynin oo aan ku baadi dooni karo markii dambe dhaco hawshaas waxa gacan naga siiyay dawladaha aan xiriirka wanaagsan leenahay sibaba Ingiriiska waxa doonayaan inaan ku dheeraado socdaalka iyo duulista iyo hawadu waa mataano hooy baan u nahay aba hooy bay nooyihiin waan ku dhaxnoolahay wasaaradda duulista iyo hawada muuqaalka iyaga waxa soo saari kara dadaalka ay nala dadaashay wasaaradda duulista iyo hawada amba aragtida amba qalabka amba qorsheynta madaarka iyo mudnaanta ku leenahay marka diyaarad tamaado qofka kaliya soo istaaga inuu yahay waaxda socdaalka Soomaaliland oo bini'aadamka hubisa alaabtana hay'ad kala hubisa marka mudnaanta aan gaarka leenahay ee tixgelinta nagu mudan yahay waxaan u gaadhnay muddadii waaxda socdaalka Soomaaliland inay kor u qaadno fiisayaashayada baasaboorada kuwaasoo iyana dadka halkan ka baxay baasaboorkeena Soomaaliland haysta tixgelin ay ku leeyihiin dalalka aynu jaarka nahay marka ay tagaan taasina ay ku timi qalab sugan baasaboor sugan iyo madaar sugan inay ka soo dhoofeen ma doonayo wasiirka iyo labada wasiirba warbixin dheeraad ah ka hayaan laakiin xagga xaaladda amniga inuu yahay madaarkeenu ka ugu hadda dalalka aynu joogno inuu yahay kuwa ugu horumaray amba talaabada laga qaaday ilaa maanta heerku marayay yahay mid aynu ku dhiiran karo ku dhaqaalaysan karo taliyaha fadal oo ciidanka booliiska amniga isna haysta dhinaciisa kale ayaa xog dheeraad ah kulli ka bixin doona waxaan u dhaafi doonaa inaan taliyaha u hadlo hortay marka waxaan sabootiyaa wasiirka hore Maxamuud Xaashi waxaana soo dhaweynayaa wasiirka Cadaani wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh وما سي تليها إذن كلام السعودال كالسوماليلان مناسبة قبل دي بينو تشوقنا مركا وقت وين نقول عديدي فضلا هذا الكالسوق وبدت بدن أو مدن بين لا تشوقه هذا الكوكب جالسين منه كليه وحينه هذا لا بقفا وزير كي هذا وزارة دا دونستي هو السوماليلان وزير كعصب وحا مدار كإيجال انترناشونال ايربورت كشقية دورية 8 هايدود oo qaar dawliyo u badan kuwaas wasaarada badan bay kala hoos tagaan difaaca arrimaha gudaha caafimaadka macdanta maaliyadda
iyo arrimaha gudaha wasaaradaha dhammaan iyadoo waxaa soo tagaan bay wasaaradda duulista dhammaantood marti u ahaayeen wasiir maxamuud xaashi cabdi wasiirka madaxtooyada Soomaaliland intii uu wasaaradda duulista joogay waxa uu xaqiijiyay in la horumariyo dhammaan waaxaha kaliya muu xooga saareen wasaaradda duulista shaqaalaheeda aviation-ka iyo hay'adaha madaxa bannaan iyadu maamusha inay runtii horumaraan dhammaan shaqaalaha wasaaradahaas waxa madaxdooda halkan ay ka qireen iyagoo wasaarada kale oo arrimaha gudaha iyo maaliyadda iyo gaashaandhigaba ay hoos tagaan in wasiirkaas runtii xaqiijiyay in horumar ay sameeyeen hay'adahaas taasna maanta waa mid madaarkan isbedelka ka dhacay suuro gelisay marka hadalka waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna wasiirka hore wasaaradda duulista mudane maxamuud xaashi cabdi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وسيرك وزارة الدولست هودا تليا عيدمدا بوليسك سوماليلاند تليا هولجلينتا عيدمدا قرنكا تليا لانتا سعودالكا وسيرك حيينك وزارة الدولستا أقاسمها جود saraakiisha kale ciidamada qaranka halka fadhiya maamulaha madaarka madaxda laamaha iyo waaxyaha iyo agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda duulista dhammaan shaqaale weynaha kala duwan ee madaarka Cigaal International Airport ka howlgala assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh farxad weyn bay saaka ii tahay in runtii halkan aan ku sii sagootiyo shaqaale weynaha garoonkan Cigaal International Airport ka howlgala waxaan runtii jecelahay inaan hadallo kooban uun iraahdo wasaaraddan markii 5 sano iyo badh ka hor la magacaabay ama madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ii igmaday wax khibrad iyo aqoon uma lahayn waxa la aviation maamul dawladeed waa ka soo shaqeeyay siyaasadana kumaan cusbayn laakiin shaqo noocan oo kala ah way ugu cusbay qofku markuu shaqadaas oo kala imanayana waa mas'uuliyad adag wuxuu leeyahay sakatigiisa intuu wax baranayo iyo intuu wax ka kororsanayo ma sahlana waxaan isleeyahay muddadii 5 sano iyo badh ka ahayd raganimo aan anigu leeyahay wixii qabsoomay kuma iman oo aan ragga leeyahay ragga dheerahay waxa isleeyahay nasiibkuna waa wax weyn oo jira nasiibku waa wax weyn oo jira dadaalka bini aadanku dadaalana waa wax isaguna waa wax deehimilada iyo yoolka dadku uu isleeriyo way dadaalkii xukuumadani la timi iyo qorshihii aanu dhignay qadarkii ilaahay iyo muxuu ahaayay ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan jeclay inaan ugu mahadnaqo wixii noo qabsoomay oo noo fududeeyay wax badan baa iska bedelay aviation-ka Soomaaliland muddada wax ummadan u qabsoomina way ma hali baan anigu leeyahay saaka waxaan isleeyahay keligay ma xaqiijin lib keligii ninkeenana ma jiro haddii dal horu maro dabcan hogaamiyihiisa ama madaxweynihiisu magaca uu helaa waxaase muxuu ahaayay ku mataansan oo libtaa la keena golihiisa wasiirada iyo madaxdiisa kala duwan iyo mas'uuliyiinta ciidamada iyo wixii la mid ah guul kastoo timaada dad baa wada dhaliya guushu way rag badan tahay guul daraduna way rag yar tahay guul darada lama jecla bini aadanku wuxuu ka sameeyay ma jecla guul darada bini aadanku ku kala yaacaa laakiin guusha waa la wada sheegtaa macnaheedu waxa weeye iskaashiba guusha ku timaada madaxweyne Siilaanya haddaanu tiim wanaagsan cugan xukuumaddiisu lib heli karto wasiirka meel joogana haddaanu tiimka la shaqayn lib ma keeni karo waa jaranjarada isku isdaba taala waxaan leeyahay isbedelka halka ka yimi 5 sano iyo badh ka hor
oo aan u baahnayn maanta inaynu halkan kaga warranno laakiin laga yaabo bini aadanku inuu ilaawo 5 sano iyo badhma yara waxa laga yaabaa in bini aadanka indhihiisu la qabsadaan subaxba waxa jooga halkii aynu ka soo qaadnay marka laga tago wax kale garoonkan aynu maanta joogno halkaynu ka soo qaadnay 5 sano ka hor iyo badh iyo maanta 5 iyo dhowr iyo 50 sano ee aviationka Somaliland jiray intii u qabsoontay 5 sano iyo badhkaas ayaa ka badan been maaha faan maaha oo wax taariikhda xusu doonto waxay soo bixi doontaa waqti aan maanta ahayn waxa isbedelka ka mid ah daayarta halka fadhidee labeentaas shalay garoonka shaqaale kama yahay anigu halkan waxaan ugu yimi dad kooban oo aan u badnayn dad aan aqoon lahayn u badan dad aan aqoon lahayn oo inta eray ingiriisiga soo celin kartaa iyadoo kadinkii dalka uu kan yahay ay kooban tahay oo muxuu ahaayay garoonka gudihiisa lagu qaylo oo sigaarka lagu cabo oo aan ID card lahayn oo baasaboorada wasiir laga soo qaato dayuuradda dhexdeeda oo nin walba meel kala baxo ayaan anigu maalinta halkan ku sameeyay wasiirkii iga horreeyay waxaan qarayay inuu wax badan qabtay marka loo eego kuwii ka sii horreeyay ninba meel buu ka soo qaadaa wax badan buu qabtay wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu wax qabadka badnaa xukuumaddii udu haddana xaaladaasaan aniguna ugu yimi dadkani waa dadkii isbeddelkana ku yimi isbeddelkana keenay baan aaminsanahay shaqaalahaasi waxay ka kooban yihiin reer Somaliland oo dhan beel gaara maaha beel la uma badna haddii aan anigu waxaan meelaha ka maqlaa dad gaara wasiirku ku ururiyay yaa maantaba waanigaa ka tegey haddaan dad koox ku ururiyay iyo haddaan gobol ku ururiyayna way soo bixi doontaa 20 jir mudug jooga alla uma xirqanin way soo wada taqaanaan sida lagu qoray shaqaalaha madaarku uu ka duwan yahay maadaama uu saameyn ku leeyahay nabadgelyada qaranka waxa laga yaabaa inaan shaqooyinka qaarkood tartan loo gelin baa laga yaabaa waayo waa shaqaale la xidhiidha nabadgelyo